بسم الله الرحمن الرحيم maalin wanaagsan roodo iyo Axmed Xasan Ibrahim iyo dhammaan dadka naga daawanaya telefishinka caalamiga kalsan xafiiskiisa Muqdisho iyo barnaamijka tooska maalin wanaagsan waxa idin leeyahay aad baan idin salaamayaa hadaa faahfaahin ka bixiyo xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho 24 saac la soo dhaafay xaaladaha amniga iyo midda ganacsiga iyo midda horumarada ka jira intaba iska caadi maanta waa maalintii labaad ee Ciidul Adha oo Soomaalida ay u taqaan ciid weynay sida caadigan ciidan waa 3 maalmood maadaama inta badan dadka marka wadooyinka marayso isku marxabeynayaan isku hambalyeynayaan inay weyneynayaan ciida waxa loo ku soo maray degmooyinka wadajir iyo dharkeelay iyo waa bari saddexdaas degmo dadka sida caadiga ah ciidi iyo farxadeeda ka muuqatay ilmaha yar yar ayaa wadooyinka marayo ciiday oo wadada ku ciyaarayay sidoo kale waalidiinta qaarkood ay ilmahooda gacanta ka hayo yaani goobo dalxiis iyo intaba u wada marka maalinta labaad si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya in dadka ay aad u ciidaan sidoo kale hadaa ka warbixiyo xaaladda guud ee degmooyinka sida waxbarashada caafimaadka iyo MCA-jada goobaha caafimaad isku socodka dadka gaadiidka inta waa oo waxa shaqeynaya isbitaaladii iyo xarumihii farmashiyaasha caadiga ah dukaamankii iyo suuqyadii sida caadiga ah waa furan yihiin waxbarashadana kulay dugsi quraanadii ayaa ogaanteena yaani shaqeynayay inkastoo hadana xilli ciid lagu jiro oo laga yaabo ardayda dugsi quraanada toddobaad in ka badan la soo fasaxo marka magaalada aad saakiran rayn iyo farxad iyo jawi roobaadana ka jira shalay ilaa maanta magaalada Muqdisho waxa ka daaya roob oo dadka ay ku diirsadeen shalay magaalada qaybo kamid ah tagay dadka waxay aad u tagayeen goobaha lagu dalxiiso sida xeebta Liido xeebta Jazeera iyo Dar es Salaam meesha loo yaqaan dadka inta badan dadka isku yimaadaan oo u dabaasha tagaan ama danahooda iyo waqtigooda ay ku qaataan marka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maalinta labaad si wanaagsan ciid looga dareemayaa amnigeedana waa mid hagaagsan dadkana way isdhex galeen oo si aad u qurux badan dadka ay u xusayaan maalintan weynaynta mudan waliba dadka qaarkood ama carruurta marka la sheekayso waxay ku sii sheegaan in hal maalin kale oo siinmato ciida 3 maalin ay tahay marka waxa leenahay meel walba jooga ciid wanaagsan labada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo gobolka Hiiraanba qadka telefoonka kula xiriirnay falal amni dareem wax khalaas ama dhibaato meesan ka jirin xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho waa iska caadi ah hadalhaynta dadku waxay hadalhayaan arintan ciida iyo ciidan oo dadka inta badan diyaar garow badan oo san jirin hadana dadka aad ugu faraxsan yihiin dadka muslimiinta ama dadka islaamka waxay iskugu baaqayaan in la iscaawiyo maadaama ciidan ay tahay ciidul udhiyada oo xoolo la sadaqaysto xoolo yaani la gooracay la sadaqaysto hilibka la sadaqaysto dadka islaamkana isgargaaraan maadaama ciidan ciidihii kala kaga duwan tahay marka dhanka isboortiga dhalinyarada hadalhayaan marka si guud barnaamijka maalin wanaagsan taas ayaan jeclahay inaan xubintii degmooyinka ku soo gabagabeeyo anigoo sandheera adii soo saaray adii la socodsiinay yuulka kaamirada iga duubayay waa mahad celinayaa Roodo iyo Axmed iyo dadka tiimka barnaamijka maalin wanaagsan